halkani waa London laantii af Soomaaliga ee BBC da oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 13 mitir band xusuus aad u weyn bay igu leedahay aad iyo aad anigoo yar wiil yara gar madowle timo madowle ayaan imid Bush House 20 November sanadkii 1969 waxaan ka hadalnay dawladdii kacaankeed militariga inta badan ma jeclayn BBC waraysiyo kulul baad ka qaaday inta badan oo waliba hogaamiyihii kacaanka Maxamed Siyaad Barre ka qaaday waa run anaa ka qaaday shaqa la iigu diray muxuu ahaayay Muqdisho laakiin ma aanan filaynin saraakiilna in la toogto Soomaaligana in la qoro muxuu ahaayay jaamacadda carabtana lagu biiro waqtigaasi intii aan halkaa joogay bay dhaceen marka waraysi baa weydiistay madaxweynaha markaana dee waad iska garanaysaayo xasaasi bay ahayd arrintan nimankan la toogtay aad iyo aad xasaasi bay ahayd marka nin madaxweynaha oo arrintaa ka hadli karayay markaas ma jirinba xataa Maxamed Siyaad Barre quladiisa dhibaatay ku ahayd baan u malaynayaa markii aan u tagay weydiiyey nimankaas la toogtayna waxbaan kaa weydiinaya wuu diidi kari waayey marka waxaan weydiiyey 3 su'aalood baan ka xusuusnahay su'aali waxay ahayd madaxweyne dadka Soomaalidu uma baranin xukun military goormaad xukunka wareejinaysaan oo aad ku wareejinaysaan dadka rayidka su'aasha kale waxay ahayd shalayto daraato waxaad toogateen 3 sarkaal oo ka tirsanaa ciidamadiina saraakiishiinii kacaanka maxaad nimanka u toogateen oo u disheen hadday khalad galeen maxaad u oran weydeen wax weyn wixii ay noo soo qabteen kacaankii ay nala soo halgameen ayaa ka weyn waxaasoo dhan marka waan saamaxaya maxaad u oran weydeen waxaa jirtay in laanta af Soomaaliga BBC-da ka sokow in dadka aad xog siisaan oo akhbaar u soo gudbisaan in sidoo kale dhinaca luqadan ay ahayd meel wax laga barto erayo badan oo aad curiseen oo adigu ku dhaada samaysay baa jira waxaan ku ereyga aan bilaabay inaan tarjumo oo Soomaali aan ka dhigo wuxuu ahaa the Commonwealth waxa weeye dalalkan maaragtay Ingiriisku madaxda ka yahay ee isu tagay Asia Africa kale marka waxaan taas barwaaqa sooran baan u bixiyay waxa kale oo jiray erey isna aad u fiicnaa oo yani dalalka Latin America iyo bariga dhexe iyo Europe waxa bariga gilgilay waxa weeye waxaan la yiraahdo mukhaadaraadka diraagada marka diraagadii maxay noqotay Soomaali maxay noqotay dad badan oo baa ku dhageysanaya aan af Ingiriisiga garanaynin marka waxaan idhi war maxay idin la tahay haddaan idhaaho maandooriyaha